shacabka magaalada Qarni ee gobolka Karkaar ayaa si weyn u taageeray ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha Daacish ee ku dhuumaaleysta buuraleyda gobolka Bari. munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen shacabka iyo maamulka gobolka Karkaar ayaa taageero iyo garab istaag loogu muujiyay ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha Daacish ee ka dagaalamaya gobolka Bari ee Puntland. muuqaalkan waxa ku daawan doontaan maamulka iyo shacabka gobolka Karkaar waxa ay ka dhaheen dagaalka ay ciidamada Puntland kula jiraan kooxaha Daacish. balse marka ugu horeysa waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto oo aad YouTube-keena subscribe dhahdo, sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad ula socoto muuqaaladeena maalinlaha ah oo aan halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud oo si weyn uga hadlay dagaalka ay ciidamada Puntland kula jiraan kooxaha Daacish ayaa dadka reer Puntland ugu baaqay inay dagaalkan ka qayb galaan oo ay soo galaan ciidamadoodana ay la garab istaagaan cuntada, biyaha iyo waxyaabaha kale oo ciidanka muhiimka ah si ay ciidamada uga guuleystaan kooxaha Daacish ee ay dagaalka kula jiraan. sidoo kale taliyaha qaybtu waxa uu sheegay in ciidamada ka dagaalamaya gobolka Bari hadii laga guuleysto ay dadka reer Puntland ay noqon doonaan dad la guumeysto oo sidii la doono laga yeelo gobolka Barina lala wareegi doono gabi ahaantiisba. taliyaha oo si adag uga hadlay ayaa shacabka Puntland siiba kuwa gobolka Karkaar ugu baaqay inay ciidamadooda garab istaagaan oo qof walba uu qaado talaabada la gudboon. taliyaha oo arrinkan ka hadlaya waxa uu yiri dagaalkii ugu horeeyay oo ismiidaamina miidiyaha ka aragteen ciidamadu waa sheegeen dhar jaale waxay isqarxiyay waxay wada noqdeen iyo wixii la laayay wax Soomaaliya kuma jirin. taas waxay inii cadeynaysaa dalkeena in duulaan lagu yahay oo Daacish duulaan ku tahay oo waxay u socdaan aan la garanayn oo aysan waxina ku lahayn oo Soomaalidu ay qaliil ka tahay oo waxa weeye ay doonayaan inay hooyada yaanyada gadaysa baqaarka ninka jooga sharciga dawladnimada ninka ilaalinaya kala damaynta ilaalinaya inay qarxiyaan hantida ganacsatada iyo dukaamada iyo shirkadaha ay qarxiyaan. taasu daliil waxay u tahay inay duulaan qaawan tahay. waxaan bulshada u bayaaminaynaa dagaalka dawladdu ku jirto oo kula dagaalamayso argagixisada waxaan u baahannahay ficil iyo jawaab dawlad iyo shacab inay iska garabsadaan. waxay ina ka soo weerareen waa garanaysaan Suudiya Garmaal galgala iyo buuraha intii dagaal la gal waa lagu jabiyay. Suudiya Garmaal qolkay galaanba gabdhaha sheegayay odayaasha sheegayay ka ariga la jooga sheegayay maxaa markii kuwa Soomaali bay u badnaayeen hal qof adnabi kuma jirin laakiin kuwaan waa kuwa aan inoo arxamayn diinna u socon dadnimana u socon inay qof kasta duleystaan meeshiisana ugu tagaan raba. dawladdu waa ka dhidhiday jawaab bay ka bixisay ciidamadii bay u duntay jawaabta ugu dambaysan iyada bixinaysa. laakiin bulshada Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taalo, meel la joogo ma taalo, meel la ganacsado ma taalo, meel wax ka laga fikiro ma taalo. qof walba waxa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabta laga doonaya. maxay tahay wuxuu qaban lahaa? waxa laga rabaa shacabka, hooyooyinka, dadka darawallada ah, kuwa gaadiidka wata, kan baadiyaha degan, tuulada ninka jooga, qofkii meel maraya oo ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waa waxa ugu horeeya. waxa laga rabaa taageero, caanaha inay qaadno, biyaha qaadno, sabaayada dubno, gabadhii dhakhtarada soo baxdo, odagu xoolaha soo gooyo. wallaahi Daacish meeshay ugu imanaysa. ninka geedka gelaya oo hadeer aan imanayn hadday Daacish soo qabsato buuraha iyo banaanka arigaaga barbay goosanayaan. wiilashaada shan bay leeyihiin, 3 weey 4 keen bay dhahayaan sida koonfur ka dhacda. boosaaseenu kaga soo baxnaa gaari gaalkacyan ku tagnaa hal gabar baa wata ama oday baa wata ama nin wiila wata isagoo aan cidlo socon ilaahay wax loogu xamdiyahay. laakiin waa laynoo soo dhila dhaansaday. maxaynu kaga bixi karaa? wada jir baynu kaga bixi karaa. waxba odayaashu aysan gadaal gelin
meherada iyo shaah ka cabin wallaahi dhafoorkaa lagu wada dhifanaya iyaga xoolaha laga qaadaya wallaahi waxay dhahayaan yaa ku jira qofkee baa ugu roon kee la dili karaa kee la iska qabtaa marka dambana dumarka iyo inta hartay bay dareersanayaan aqbali mayno inta qof naga nool yahay haddaanu anagu dawladda nahay annagu fadhii mayno xafiisyada maalmo dhow waxaa naga arki doontaan annagu furmaha joogna kama shaqaynayno gobolka iyo halanka kama shaqaynayno waxaan ini ka rabnaa odagii diida gabadhu inay dhagxiso oo guri ka soo saadho waxaan ini ka rabnaa gabdhow odagii suuqa taagan inaad dhagxisaan meherada ku fadhiya dhagxisaan ka saadhaan odayaasha magaalada bannaanka inuu baxdiga dagaalka ay galaan waxaan ka codsanayaa gabdhaha oday guri seexan karaa ma jiro oday meherad fadhii karaa ma jiro oday gaari ka haysan karaa ma jiro dagaalka waa in loo guntadaa ma wiilasha keliya oo dhimanaya oo shashanta u dhimanaya baan sugaynaa ma odaga duub kale oo halka fadhiya oo beenta ku sheekaynaya sugaynaa waxaa layna ka rabaa gabdhow inaad kacdaan oo idinku ciidan noqotaan diyaar waxaan u noqonaynaa oo wallaahi oo bilaahina waa inaan u dhimanno oo meesha ku maydno oo annagoo aanaan shabaab iyo daacish aanaan halka u fadhiin baan ballayni ka qaadin raggii dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ma la ilaawi doono halgamayaal weeye meel baa lagu qoray dawladduna ogaanaysaa agoontoodii iyo guryahoodii qof kastoo meesha ku dhinta qof la ilaawi doono ma noqon doono si gaar ah loo ogaan doonaa taa ogaada midda labaad waxaan rabnaa waa inaan hawlgallo marka maxaanu hawlgelaynaa waxaa la rabaa guryaha la rabo kimista in lagu dubo burkana waa keenaynaa saliidana waa keenaynaa gabdhuhu inay dubaan baan rabnaa iyagoo inay calaamadiyaan baan rabnaa waxaan rabnaa baabuurtii biyaha iyo timirta inaan diyaarino guddi baa iska soo saaraysaan guddoomiyaha inuu ku dhawaaqi doona markaasaan waxa weeye annaguna waxaan keenaynaa timirtii iyo wixii loo baahan yahay idinkuna qaybtiina keenaysaan magaalada gelaysaan sidii ay sheegtay isuduwa waxaan rabnaa ugu yaraan 4 gaari 3 gaari oo buskul iyo timir iyo wax walba isugu jira inaan raraan rabnaa waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta oo loo baahdo oo ragga dagaal ku jira u baahdaan inaynu gobolkeena ugu horeyno geeyno sida ay sheegeen raggii horeba xoolihii baan geynay hantii kale aan geynay raggii baa jira wixii kalena waa ku dareena diyaar waxaanu anaguna ka doortay waxa kaliya layna ka rabaa ugu baaqaya gobolka Karkaar dadka xeebaha degan iyo tuulooyinka baadiyaha inay feejignaadaan wax kasta oo xog ay helaan inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuula ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa baalkaysanaya inay qof kasta oo cadawa aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa haddii ay waayaan cid ay la hadlaan in anagana la soo hadlaan lambarkaygu waa 7797429 dagaalka inta socda saacad walba waxaan diyaar u nahay inaan qabanno saacad ugu hortagno gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Saciid Cismaan iyo shacabkii kale ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda hadlay waxayna tilmaameen in ay muhiim tahay in ciidamada Puntland la garab istaago haddii ay noqon lahayd saanad iyo haddii ay noqon lahayd wax kaleba waxa ayna sheegeen hadda waynu garan karnaa maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka Karkaar dhammaan qaybaha kala gedisan oo ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin 7 degmo ka kooban yahay hore waa uga qayb qaateen xoolihii baa la geeyay hadeerna waxaan faraynaa degmooyinka iyo dhammaan qaybaha kale in phase-ka labaad saddexaad laga qayb qaato phase 1 iyo phase 2 hore loo geeyay phase-ka saddexaad in laga qayb qaato ayaan doonaynaa oo la isu wada taago dhammaan dadkaas waa cadow loo soo diray hadda ka hor baa gobolada dhexe markii dagaal ka socday oo degmooyinka qaybtooda laga xoreeyay oo ninkii jeetel la oran jiray oo runtii ninkaas halgamaan buu ahaa markii dambana dawladdu ka fariisay waxa moodaa dawladdu qofkii shaqeynayaba inay shaqada ka fariisinayso si uu soo hor mar u sameyn nin baa dadkii tuulada laga xoreeyay baa wuxuu yiri 11 yaani xaaska u nahay 13 qof waa noo yimaadeen waxay yiraahdeen wixii hore ka jira hadda kiin la isku meerinaya meel cusub lagu dhunto maanta dambe u yimaada waxa la yahay waxa laga rabaa
13 qof lacagtoodii war soo idinkii 11 ka yiri ma wadhalinba ma wixii hore waxa ka jira bale lacagta bixi marka halkaas la maraya iyagu dhinacay rabaan bay u dhigayaan ciidankayaga sharafta badan aanu ku hurudno oo aan ku seexano aan nabadda iyo barwaaqada iyo aan ku seexano aad baan guul ugu rajaynayaa aad baan waxaan ugu rajaynayaa inay guuleystaan Puntland guul Puntland guul Puntland guul Puntland guul Puntland guul cadawga buuraha ku jira Puntland guul inay ka guuleysato Puntland guul inay ka guuleysato cadawga inay tirtiraan oo baabiyaan oo sidii qoladii garmaal iyo suud inuu baabinayno guul ciidamada Puntland guul annaguna waxaan ugu garab taaganay adaanay hooyooyinka hiil iyo hoo waa la garab taaganaa gabadhii dhalinyaro oo qoriga qaadanaysa waa la dhinac taaganta annagu hooyooyinka adaanay hiil iyo hoo waa la taaganaa waxa allaala wixii naloo ka soo baahdo waa taaganaa diyaar baan u leenahay maxaa tiraadeen dumarow ciidankeena maxaynu niraanaa ciidankeena niraanaa tuutaa ma xiranaynaa qoriga ma qaadanaynaa dabalaab baan leeyahay tuutaan gashanaya waa qaadanayaa qoriga awalna horaan ugu qaatay inaan tuuta u gashaday oo qori u qaatay markhaantiyadeedii baa fadhiya haddana waa u qaadanayaa diyaar baanu ah maxay leenahay ciidamadeenna maxaynu diyaar lana odayaasha iyo dhammaanna waan salaamayaa iyaguna wayna dhinac taagayn waa dhinac soconaynaa dawladdeena waa dhinac soconaynaa waa dhinac taagana dawladdeena maxay leenahay dhalinyaradeena maxay leenahay kaca dhalinyaray kaca hooyooyinow kaca loo kaca dhalinyarada loo kaco iyagaynu ku hurudnaa cid kale kuma hurudno iyagaynu ku hurudna oo ku ganacsan mayno haddii la waayo dhalinyarada intii dhimatay allah u naxariisto maalintii dhaweyd halkaa dhalinyaradii qaraxa lala dhexgalay allah u naxariisto intii dhaawacantana allah u boogadhayo awlaaddii ay ka tageen dawladda waxaan ku boorinaynaa qaybta naloo jeeda awlaaddii ay ka tageen dhalinyaradaas in la ogaado hooyooyinka ay ka tageen in la ogaado saasaan leenahay assalaamu calaykum oo u istaagnay halkan waxa weeye madaxweynaha Siciid Cabdilaahi Dani wuxuu u istaagay inuu wadankiisa soo afjaro hadaf iyo go'aan buuna gaaray inuu ka mir dhaliyo wadankiisa guul soo hooyo garmaal waad ogeydeen daqiiqad baa lagu soo afjaray albuurata nimankeena ku soo duulay hadda oo gaaladaana haddana insha Allah wuxuu ku soo ciidamada Puntland ku soo afjarayaan guul iyo gabagabo intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna Allah u booqadayo ciidankay waa garab taagana ciidankay guul naf iyo maal waa garab taagana xoog iyo qalbi waa taageerayna qalbiga wayna kala jirnaa niyadda wayna kula haynaa halkaas ayna kala dagaalamayna xaabada wayna la ridaynaa wayna dhinac taaganahay baalihiini baan nahay garbihiini baan nahay ciidan meel walba baalihiini baan nahay wayna taageersanaa wayna taaganahay wayna garab taagaynaa madax waxaan ka u taaganahay saaka u soo istaagnay inaanu tuutaha iyo qoriga xirano gabdhow tuutaha iyo qoriga waan xiranaa wayna dhinac istaagnaa وإنه سراويش اسكت هجنا وإنه قرية قالنا أروح باسكت بالله باسكت هذا قالنا هذا قالنا ديار بانوا إن عندنا استاجينا كيجا إن عم بورها وده قالوا إن كي عن قبتها دمك كده دامك كقولوا ليو بان ديار واحد دام ديار واحد قول نود يكون على ماشى نود يكون على ماشى نود على سوي ماذا عذار بنشغليا قرية هلا كراينا يو واحد دليا هلا أقعدوا كي صاقر هلا أقعدوا كي ودنا صابر هلا أقعدوا هذا وحي لا ميراعها وينسينا بريسكا وينسينا العقد مسكين لاين وواحد بوراي نقلي وواحد ميتكي سيال كوا ينو شغله وين دبر هديناي كنا غاغنا قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن سلام يا مدحتوية بلان هو فرد ميش
waxaan salaamayaa odayaasha nabadoonnada waxaan salaamayaa dhallinyarada waxaan salaamayaa gabdhaha sharafta leh oo shirka soo buuxiyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan leeyahay hadalkii hore buu hadal ahaa annagu waxaanu ku daray odayaasha waa la durayaa yaraan ay meesha ku yar yihiin baanu xoogaa waa hilbayarahay sidaa darteeda loo durayaa canaan oday weligii waa iska qabi jiray waxaan leeyahay waa u kacaynaa arrinta maanta taagan oo colaadda leh oo buntland ku soo jeeda waa inu isu taagan naf iyo maal anaa haray looma hadlo hadalkii hore u ahaa laakiin waa istaagaynaa maahae waa la kacayaa naf iyo maalna waa la gelaynaa ilaahayna waxaan ka barinay ilaahay inaynu taageero ilaahay waxaan ka barinay inaynu horumarro dowladda buntland horeyba u horumartay oo nabadgelyo u heshay oo ku barwaaqowday allah inoo siyaadiyo ilaahay saasaan ka barinay ilaahay inuu inoo siyaadiyo hadalma haryane ducaa noo hadhay allahna tiro ilaahayna taageero cadowga allahna ka qabto allaha jabiyo cagtaynu ku qabannay xooggeena iyo madaxdeena iyo kor allah u qaado intii dhaawaca allah u bogadhayo intii dhimatana naxariista allah ka waraabi ilaahay saasaan ka barin saasaan ku soo gabagabeynayaa shirku intaasaan ku soo darayaa anugu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabdhaha sharafta leh oo asalkooda iyo jiritaankoodaba la yaqaan haddaan la isxamanayn waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan iyo waxa ay gooyaan waa la yaqaan iyo inta maqli doontaba waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi shirkaanu waa taageero waa dadaal aynu ku bixinno cadowga ina ku wajahan oo xag jirka oo nafteenna iyo maalkeenna doonaya inaynu una midaysannahay ciidamada sharafta leh oo furunta jira iyo kuwa ka dambayn doona oo iyaga racooda dambaa intaba inaynu taageero naf iyo maal ku taageero hanti iyo cod iyo dhiirigelin intaba inaan ku taageero waa taageeraynaa baanu leenahay wixii naga qabtana waa ka qaadanaynaa ikhyaar ahaan iyo odayaal ahaan haddaayayto haddaan la iscanaanan waxa la reerka hawd kan u horeeya kan u dambeeya kan u dhaxeeya haddaysan qaylin oo reerku waa kala lumaa hadalka dawladda ama taliyaha qaybta canaan baanu u arkaynaa haddaan la iscanaanan lama gaari karo yoolka la higsanayo waa canaan baan hadalkaa u arkaynaa odayaashuna dhaliisha yartaa oo loo soo jeedinayo odayaashu intaa maradaa dhexda ugu xidhan koofiyadii iyo iyagiibaa isku dhididay hawl bayna u taagan yihiin kollaysay u badan yihiin hawl bay u taagan yihiin dadgeeda iska harsanaya maaha haatan kuwa gobolka laga waayay hawl bay ku maqan yihiin oo dhul bay ku maqan yihiin ma aqaan shakhsiyaal dhifa haddii xoogaa la canaantay waa canaan odayaasha canaan baanu taasna u qaadanaynaa annaguna dawladda inaannu canaananno ilaa heer madaxweyne ciidanka wasiirada xildhibaanada gobollada iyo degmooyinka inaannu canaananno fadhiga ina ka kiciya nidhaahno arrinta lagu gaaraya wadajirka iyo yoolka la higsanayo saas weeye haddii ilaahay idamka ka yeelo waa taageeraynaa ciidanka sharafta leh intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto xaqdarray ku dhinteen kuwii dhaawacmayna ilaahay boogaha ha u dhayo kuwa furinta jooga iyo kuwa xigi doonana kuwii guulaysta ilaahay ha ka yeelo dhinaca kale cadowgu meel kastuu joogaa sida la sheegay waxaa laga yaabaa inuu ina ku dhex jiro uusan ina ka maqnayn taana inaynu ka feeyigaanno ka midaysannahay wax allaale wixii la garan waayo oo khoof qor oday baa wuxuu oran jiray wuxuu ka shakeeyaa khoof qor wixii laga khoofo in laga midaysan yahay baa la rabaa lala soo wadaaga sirdoonnada iyo dawladda iyo dadka mintidiinta in lala soo wadaaga xaaladooda meel la joogaba sidaa in loo feeyig yahay baa la rabaa
wixii taageeraa naf iyo maal waa la garab taagannahay waana la garab istaagaynaa ilaahayna hayna ku guuleeyo yoolka aan higsanayno dadka xaq jirka oo dhibaatada naf iyo maal ina ku wadaya ciribtirka rabbina waa la kaashanaynaa ragna waa nahay ina kuna sii fogaan mayaan waa afjar mayaan aad baa u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq